mar walba ay wax doontaan waxa leeyahay qof wax lagu xiraa waxa waaye ayadoo baasaboorka xataa serviceka iyo diblomaatiga ay aad u shaqeynayeen oo lagu celi kara xataa meelaha qaar stability ku imaanay Soomaa marka dadkaasi waxyaabihii loogu beddelay ilaa baasaboorkooda still hadda shaash kala u gudbeena qaraabo aad soo dhawaanay waxa leeyahay dismotivated ama dhiirigelin xumo ay ku sameeyeen baasaboorka Soomaaliya ee qurbo joogta markii la fiiriyo dhacdadii sanadkii 2 sano ugu xukuumadda qeyra lagu jiro ka dhacday Kenya markii xildhibaanada qaarkood ay la soo baxeen baasaboor caalami ayagoo qarsanaya baasaboorkooda Soomaaliya ma arintaas misleeda wadanka dadka localka qurbo joogta waxay ku sameynaysaa inay inkiraan ama aysan aaminsaneyn baasaboorka wadanka dabcan aad weyn waliba dhibaatada weyn oo keenta wada dhalinyarada in ay raadiyaan inay noqdaan negative citizen kale oo dal kale inay tagaan oo ay baasaboor ka soo helaan waxa ku qasbaa waxa waaye kooda Soomaaliya kaliya meel ku aadi karaan mar walba ay wax doontaan waxa leeyahay qof wax lagu xiraa waxa waaye ayadoo baasaboorka xataa serviceka iyo diblomaatiga ay aad u shaqeynayeen oo lagu celi kara xataa meelaha qaar oo u baahan tahay marka mid kale oo ku baxsatid inaad soo taagatid marka waxyaabahaas waxay keenayaan ayagana ay bilaabeen baadeen marka hore ku adkaysan lahaayeen ama dastuurka Soomaaliya lagu dar lahaay in aan qof macnaha jinsiyad Soomaaliya ma jinsiyad kale aan wadanin Ahmed hadii uu qabanayana kiisi hore oo ka soo tago maadaama oo ninkaas loyalty uu yahay ama walaa uu ahay dawladda oo ka imaaday oo dhaar ma shaqeyn karto marka laba dhaar ma shaqeyn karto marka dad marka waxa Soomaaliya su'aalina qodobka motivationka baasaboorka Ahmed hal midaan ku sheegaa aniga horaan ku soo hadlay aniga horta ma dhiirigelinaan macnaheedu in qofka oo service waxa public service ka qabanayo inuu another passport ama other citizen kale uu yahay laakiin midaan ku sheegaa hal mid san ogsoonahay dalku naga uu dhismaa stability hadda ma jirto stability-ga hadda la dhisaya stability ku imaanay Soomaa marka dadkaasi waxyaabihii loogu beddelay ilaa baasaboorkooda still hadda waxay ku haysan dalka conflict ka dhaco automatically hay'ad halkaada ku noqonaysa leeyahay Soomaa laakiin markii laga tago haddana hal mid haddii even dalka hadda deganaashiisa uu fiican yahay dalka uu ku soo badahooyaan Soomaa qof ilmihiisa xagga jiraan oo damco waa ogsoon tahay waa aniga ma dhiirigelinaan macna baasaboor Soomaaliga in laga tago qofka baasaboor kala qaato haddana ma dhiirigelinaan inuu qofku laakiin midaan ku sheegaa waxa waa macna dabcan waxa loo arkay xogaa ku meel gaar dabcan laga baxa midaan ku sheego waa dadka shalay ku nasanay daas meena in maanta uu abaalgudno in shaqooyinka asiinana sawaay because qaraabo aan ka hadlayno laga yaabo wax barashiisa waalidkiisa in ayaga waxa ama oo dibadda jiray ama gudaha joogeen dad kale oo waalid ama qaraabada ay ka soo keenay jireen remittansiga ay ugu dhigayaan ma ku sameynayaan dhiirigelin xumo baasaboorka loo ka wadanka oo joogta ku sameynayaan how sidee ugu sameynayaan tabcan wataan ku sheegayo dadkan hadda ayagu way qaataan oo waa 30 sano oo dawladda burbursaneed ayay u soo qaateen Soomaa shalay u mayna doona ayagoo dalkii dawlad ka jirto stability ka jiro governmental ka jirto may doona midaan ku sheegay marka maanta marka waxaan ugu sameeyeen dabcan anigana waa wataa adigana waa wataa Soomaa baasaboor Soomaali sax hal mid marka just maanta inta oo waxa on arrival ah oo maanta visa inuu yahay xogaa kor u soo kac uu fiican yahay dabcan hadii ayagu dhiirigelinaan dad badan madaxweynaha qaranka oo hadda oo jooga farmaajo oo mandate-kiisa oo dabcan waxa waayeen wuu iska dhigay Soomaa dis markuu wuxuu asiga just waa imaanaysa baashaabay u imaanaysa faxsa ku siinaya waxa leeyahay job description kala shaqada hasta sare sida senior advisor-ka la talanta sare waxyaabaha la xiriira diblomaatiga waxa ugu badan ee lagu xushay labadii dawladda ugu dambeysay waxay leedahay international passport passport Soomaaliya madax banaan marka adigu waxa leedahay ma dhiirigelinaa marka wasaaradda shaqada shaqaalaha waxa leedahay report-ka ka soo horjeeda طبعا انتم قابسان فكرت كذا قرن حل عالمي ام حل حياه لحر لو ما ديبينا لي قف انترناشونال باسبور waa loo dhiibay ma kuna loo dhiibay maxaa ribadku saas u leeyahay lama diibina leeyahay facts way wax qoran oo jiro hal mid ribadka iyo sidaan anaga indhahan ku arno practical aan ku aragno taa way kala duunaan karaan ma sheegi kartaa aniga very local oo diplomatic oo waa jiraan haddaan hebel aan dhihin waa jiraan anaa ku sheegaa waa jiraan laakiin tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jawhar TV daawade mar